cid duulaan ku ah iyo weerar loogu socdaa Puntland oo anagu ognahay ma jirto lamana dhihi karo madaxweynaha jamhuuriyaddu ma imaan kara kaalkacyo Puntland inay tiraahdo sax maaha markaan runta ku sheego wallahi waxa weey horta meesha la yiraahdo kaalkacyo waa magaalo la wada degan yahay laba qaybood bayna u kala qaybsantaa qayb Puntland iyo qayb Galmudug wada noolaansho iyo deganaan iyo wanaag baan ku wada noolahay laakiin maamulkeeda iyo nidaamkeeda dawladda Galmudug ayaa ka mas'uula cidda imaanaysa iyo cidda ka baxaysana annaga ayaa ka mas'uula hadaan maamulka Galmudug madaxweynaha waa meesha waa imaanaya waana lagu soo dhaweynaya shaqooyinka u yimidna waana dhulkii Soomaaliyeed u xukumay Puntland xal waxa sheegtay in ciidankeeda ay heegan gelisay Xasan Sheekh Maxamuud oo gaalkacyo imaadana waxa halkaasi ka dhashay in mas'uuliyadiisa isagu u qaaday ma kama filayno Galmudug waa iyo Puntland waa magaalo naga wada dhaxaysa cid duulaan ku ah iyo weerar loogu socdaa Puntland oo anagu ognahay ma jirto lamana dhihi karo madaxweynaha jamhuuriyaddu ma imaan kara kaalkacyo Puntland inay tiraahdo sax maaha markaan runta ku sheego madaxweynuhu wuxuu xukumaa Puntland wuxuu xukumaa Soomaaliya oo dhan kaalkacyo meel kamid ah duulaan iyo colaad ay ugu socotaan aan ognahayna ma jirto marka kama dhacayaan sababtoo waxa weeye dawlad federaal oo duulaana iyo Galmudug oo duulaana ma jirto Puntland kama filayno inay ku soo duusho muxuu madaxweynuhu yimid duulaan u soo qaadayso magaalada waa la degan yahay ciidan Galmudug baa jooga ciidankii dawladda federaalka jooga ciidan walba jooga sabab ay Puntland ay ku soo weerarto because Xasan Sheekh baa yimid kaalkacyo maaha xeerkaas nagama dhaxeeyo anu Puntland waa wada shaqeynaa wadaxdeeda waa is ognahay wax dhibana nama dhaxyaalo wax marka maanta keeni kara ma jiraan dawladda federaalkana kama filayno maanta inay duulaan ku tahay Puntland ma dhacayso yaan dhinac kale loo macnayn yaan dadka khalkhal la gelin hadda maalintii doorashada maalintii ka horeysay aniga iyo madaxda Galmudug ee amniga waan wada joognay waxaan ka wada shaqeynaynay doorashada Galmudug ka dhacaysay inay wax ka daryeelaan wax ka ogaadaan xaaladdeeda waa isku raacna wax dhibaato ka dhacda maalintii dhaweyd dhexdooda markii wax yar ay iyagu istaabteenna wax u soo talaamay dhinacaana ma jirin waxaan heshiis ku nahay in la dhowro wada deganaanshaha iyo darisnimada labada dawladood labada degaan labada shicib magaaladan waa magaalo fac weyn inta la wada deganaa dhibaatooyin iyo mashaakil in ku milan oo hore soo martay marka Puntland haday dawladda federaalka ay xiriir la leedahay haday isla lahayn waa baab gooniya laakiin ma ka dhex sameynayso wax